axbaabta iyo saadaadka aan jecelnahay halkaad naga daawanaysaan waa shabakatul muxibiin. waa ziyaaradii 22aad allaha u naxariistee xaaji xasan macow oo lagu qabtay markaska weyn ee sheekh maxamuud oo cabdulla cariif. waxaa siyaarada ka soo qayb galay dariiqada axmediya gaar ahaan raxmaaniya. waxaa taariikhda xajiga ka sheekeeyeen mashaa'ikhda ka soo qayb gashay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قلبت وحان جوجنا مولعي وينا شيخين شيخ محمد وعبد الله عريف محل كيسين جوجنا وحنا اسكون مدي إن أنكو زيارنه نين خليف أو خليف أحمدية أو محبوب أو اللي يراهو خليف حسن معو ninkaasi wuxuu ahaa anigu intii aan ka soo gaaray anigoo wiil yar ah oo dhalinyaro hadda ka hor xajka ka imiday aan gurigiisa ugu imiday maalmaha ka mid ah markaasaan wuxuu yiri aniga soo jirnaa loo xalay uu jiran yahay markaasuu wiilka sheekhiya ii yimiday maantaan fiicnaanaya faataxadan ku akhriyay waa fiicnaaday waa ii sheekay wuxuu ugu yiri aniga markii iigu horreeyay oo dariiqadan ee khayrka aan soo galayay nin sheekh anigoo 20 sano jira wuxuu ugu yiri islaam baa dhimatay waxa la yiri nimankan badaha la siiyo god ay soo qodayaan islaanta god ay soo qodayaan islaantii baan soo aaday godkeen qodnay sheekha meeshaas maalinkaas noo joogay nin dadku ka cabsado ayuu ahaa godka dhexdiisa anigoo ku jira 20 sano jira ali sheekhiya soo socda nimanka waa kala ordeen godkii yaa la soo fariisay oo sheekhan kan muxuu ahaa isu suuxiyo ninkan muxuu ahaa sheekh xogaa naxtin qaba ha la yiri soo istaago dhaw fartaan xibinteeda u qabtay aniga 20 jiran ahayo fart xibinteeda u qabtay banaanka ugu soo tuur halkaas ana godku ku jira godkuna markii la fiday gacmaha saas loo fidiyo saas gacmayga fidkay goonkiisa ay taagnaayeen godka dhanaan ku dhex jiray farahiga banaankaas ay saarnaayeen foodo ay qabto fartoodeeda halkaas ugu dhifto waxa uu dhaw farta xibinteedan ku qabanay awliyadu garabka ku qabato oo dhaw halkaas baa ugu dhifto walaha shakhligu siiyo maantaasaan ka tagay waxaan dukan jiray maalintii waxaan maalintii 150 salaadood aan maalinka intii aan ka salaad iga tagtay maalinkaas waxaan dukan jiray 150 salaadood. wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd aad ayaan ugu faraxsanahay sheekh xasan waa nin maaragtay xaaladiisa loo jeedo sadar muuqda su'aal ka dhana la yiraahdo nin walbana beertuu fasho ayuu badar ka goranayaa badarkuu tabcado ayuu goranayaa waa u jeedaan gadaashayda iyo hortayda maanta oo dhan waxaa loo taagan yahay bannaanbixiisii wuxuu ahaa nin maaragtay qaaliya wuxuu ahaa nin ahlu khayra wuxuu ahaa nin culammada jecel wuxuu ahaa nin diinta jecel wuxuu la soo shaqeeyey ilaa sheekh maxamuud sheekh muuse cigale iyo sheekh maxamed sheekh maxamuud ibraahim iyo akhyaar badan oo waaweyn oo adillo ah oo aad loo wada yaqaano halkaan markuu yimid magaaladan uu soo galane sheekh nuur cumar absuge iyo culamaa diin badan ayuu maaragtay andana ku tixnaa alxamdulillah aan leenahay ilaahay maaragtay asagana oo u naxariisto annagana ilaahay maaragtay ajir iyo xasanaad badan tawxiidkan oo maantoona la akhrinayay caawo dhanna la akhri doona haddii allah naga ajir siiyo isagana waxaan leenahay kitaabkiisa allah ugu naxariisto midigna allah ka siiyo jannatul firdaws allah ugu bishaariyaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh إلا هو لا
كفيل